اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعود في روحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأنا waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qiimaha lahaa ee aan xiliyadan oo kale u qaban jirnay ardayda quraanka kariimka ku soo gabagabaysan muddo kooban oo aan rajaynayna caawa inay qayb ka mid ah aad ku maqli doontaan waxyaabo badan oo aan hore uga maqlina inkastoo uu ahaa masaajidka alfaaruuq ama madrasada alfaaruuq kuwa aad ugu xeel dheer ama North America ba looga yaqaano qaababkii quraanka kariimka ardayda ay ugu tartami jireen. tartankan iskama yimaado ilaa waqti badan iyo macallimiin iyo juhud badan oo fara badan la geliyo. saas darteed waxaan bilaabaynaa caawa barnaamijkeenii taxanaha ahaa sanad kasta dhowr mar inoo qabsami jiray. waxaa ilaahay mahadiisa inaad ka soo qayb gasheen isla markaana aad diyaar u tihiin inaad aragtaan ardayda waalidiinta macallimiinta iyo weliba maamulinta masaajidka kuwaas oo gaarsiiyey heerkan inay qur'aanka kalaamu rabbul caalamiin ay kusoo gabagabayaan muddo aad u kooban. waxaad ku maqli doontaan da'dooda waxaad ku maqli doontaan inay ka wada yar yihiin muddada islaamku uu jideeyey ee 15 sano in ka yar inay qur'aankii ku gabagabeeyeen qaar ka midana ay qur'aanka subxaanahu wa tacaala ay ku bilaabeen muddo aad u yar ama sanad aad u yar oo qalinka ama carruurtaba aan isku qaban karin iyo buugga. waxaad ku maqli doontaan sidoo kale goobaha ay ku dhasheen maxaa la yidhahdaa jundigii waalidiinta ay geliyeen. haddii ilaahay ku roon yahay waxaad kaloo arki doontaan ayagoo qur-aanka idiin akhrinayo sawiradooda dhammaantood ayaad halkaan caawa u fadhidaan insha allahu tacaala. waa tahay waxaan ku bilaabaynaa marka taariikhda oo ay tahay 11 bishii 11aad 2020keedii 2015. We are here tonight to celebrate with those kids graduated, started the Quran at the early age, finished the Quran at the age less than 15 years old. There could be 2 years or less than 2 years graduated, started the Quran Alif to Alif Lam Mim Al-Baqarah. They're all here tonight and we want to celebrate and give some good attribute to our Somali communities who's working hard to find our children and the generation to come many years so they know our tradition and our religion is to complete the Quran at early age. In those countries we live in Africa or Asia or anywhere else, such a situation is hard and rare to find a kids graduating the Quran under 5 or 6 or 8 years. Alhamdulillah. macallimiintii markaa hawsha galay. intaa markii aan ka soo gudbo waxaan u yeeri lahaa inaan idin kugu magacaabo ardayda caawa aad ku maqli doontaan waa laba Maxamed iyo laba Sumaya. Those names are 2 Mohammed and 2 Sumaya. The first student is Mohammed Adan Abdi, Mohammed Hassan Mukhtar, Sumaya Abdurrahman Hilawle, Sumaya Abdullahi Ali. Isn't it wonderful, those 3-4 kids? And we will have next week same ceremony for the same other students who graduated
in this duxi, alhamdulillah, Madrasatul Faruq. واتهاي انت مركي aan kusoo gabagabeeyo ardayda afarta ah ee aad caaw ku maqli doontaan ama aad u fadhidaan barnaamijkooda barnaamijka qiimihiisa kale ayaan hore ugu gelinaa sida caadada ah ama nala ka filayay ama in badan oo kamida maaragtay ummadda islaamka meel markay isugu yimaadaan waxa ay ku bilaabaan kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaala ee koonkan u abuuray in lagu wada dhaqmo qur-aankaasina waxaa inoo akhri doona arday kamida ardayda wax ka barata masjidka al-Faaruq waxaana la yiraahdaa Ayub Faarax fadal Ayub Faarax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Beautiful voice, mashallah. Ayub Farah. Jazakallah khair. We move on, inshallah ta'ala, for the next announcement is, his name is Walalka Mamulka Kamida Masajidka waxaa la yiraahdaa magaciisa Ramadaan waxaan maleynayaa in badan oo idin kamid ah aad garanaysaan Ramadaan oo maamulka masjidka kamid ah ayaan doonaynaa inaan isagana qayb ka siino furfuritaankii barnaamijkii qaabkii loo soo agaasimay arrimihii markaa ku tacalluqay barnaamijka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. First we have to thank Allah for bringing us, all of us tonight together here, and for also we need to thank our teachers for teaching our children all the Quran, investing all their time to prepare the students to learn the word of Allah. And
and also the administrators, all the people who run the masjid and the madrasa, the parents who bring all the time the kids for madrasa. And it's really amazing that most of our kids, I mean, small kids, 6 years, 7, are finishing the Quran. And we have all these institutions in this country that we can all benefit from. Our kids are learning from it. Maybe if we not that far past in the past, there wasn't really any masjids in Nashville, I think. I see, and I think that's the first masjid, I think one of the first masjid I ever was in 1978, and then all these masjids after this. So we're accomplishing great things. It was just a short time. So we should all put our effort and energy to continue. I remember one time over here we didn't even have maybe more than two classes. And there was a one-time Masjid al-Faruq that didn't exist. So we are going through stages. There are more people who know these stages are more than me. So, but they were going through all these stages. Alhamdulillah. There was a time we had maybe 2 or 3 classes. Maybe we had one student finish the Quran maybe in 5 years. Maybe we had 40 students, 20 students. MashaAllah, today we will progress it. We are going through more than 10 classes, full time, part time altogether. Maybe 7 or 8 classes full time, 5 days. All students are coming from Saturday through Sunday. They will go to school in the morning, come back 4 o'clock, be here until 8, 9, just to learn the Kitab of Allah. And MashaAllah, every 3 or 2 months, there's one new student to finish the Quran. As you will see, this will be a continuation of these ceremonies, because we have too many students that completed the Quran in the last couple of months, and we're going to be doing this for the next couple of Saturdays. Maybe it will be 5 or 4 Saturdays, or even more. Each one will be in a group of kids or students that completed the Quran. So Alhamdulillah, we're doing mashallah a great job, but it's not the end. We haven't reached the destination yet, so let's keep it up. Let's keep moving until our aim is not to start. We have to improve all the time. So this is especially most of the kids, the students. This is encouraged for you guys. You see your classmates, your students, your playmates, or schoolmates. They're finishing the Quran. 6 years old, 7 years old, 15. Some people finish at different ages of their lives. So this shows you that it's not an impossible task. It's in our capability. Everyone can do it. So let's aim for that. Inshallah, I want to see you guys maybe in the next 2 years. If you already have midway, finish it. If you're about to start it right now, plan it, put it in your schedule. You're going to finish it on that date. Not just finish it, memorize it. There are some kids, like for now, if you see it, they memorize the whole Quran. If you were to tell them to sit here tonight, pick up the kitab, ask any ayah, any page, they can just read it easy as reading Fatiha. So it's not an impossible task, guys. You can all do it. It's not really hard. And you'll see, as you see, some of the kids, most of them are really young. So for the students, let's work on all of us together to accomplish this. And also the teachers, you're really doing a good job, mashallah. We're blessed with the most hard-working teachers and administration, so this shouldn't be our end. We should all learn from one another, move together, get up and keep improving, inshallah. We want to see maybe 20, 15 students, 20, 30 classes, inshallah, in the next maybe couple years. Move from 2 classes, 1 class to 10 classes. So let's keep it up. We almost have like about 400, actually more than 400 students. So and the community is growing, mashallah. So let's keep moving up, guys. And that would be the short story in English. I'm gonna go back a few minutes to Somali, so I won't take a long time, inshallah. Alhamdulillah, horta ilaahay baa mahadda iska leh isugu keenay meesha ardaydeennii waxaana ilaah lagu mahadiyaa maanta ah
in ardaydii imsaadka inoo joogtay ku dhalatay magaaladeena ama meel kale oo qaarkood ku soo dhashay laakiin madrasa inoo dhiganaya maanta quraanka dhameynayaan oo bil walba iyo wiil walba xaflad loo qabanayo wax ilaahay lagu mahadiyo aad u weyn in maxaa la arday oo yaraan 8 jir 9 jir 10 jir oo ugu yaraantooda ku yara caaw qaarkood 6 jir yihiin oo quraan ku dhameeyeen wax aad ilaahay loogu mahadiyo madrasaduna iyo masaajidkana magaalada mar baa jirtay muslimiintu jiraa iska yaraayeen oo masaajid ba jirin oo ahayd maxaa la waqti la soo dhaafay laakiin waqti soo fogahayn waqti aan aad u durugsanahayn masaajidda ugu horey magaalada waxaa la dhisay waxaan ka badnay 30 sano iyo wax saas oo la siiyay marka haddana community iyo masaajidda iyo maxaa la dhahay muslimiinta magaalada jooga waa loo jeedaa إننا جارهان مسجد كان فاروق وحاجة حلو وسجربة حلو بداية هاي وبركة من الدراسيس اللي ما قدم هل كلاس ولا بكلاس هاي صدق كلاس نقدين أفر نقدين بسيب بدي فول تام لقى دقي إلى أني مثل سوقاني إلى لو توانية كلاس هذا مرينو وأنتوا بدل فول تام يهين شن معلومات دي ما دام ولي بقارب شن معلومات كلمة هي معلومات إن شاء الله كتبت وسيا محل سبوعودي وحده maalmin xitaa kale loo sameeyo oo nala soo wado oo hadda ay gaareen ilaa maxaa 400 arday oo week iyo bil walba xafladoodii loo qabanayo marka wax adagna quraankuna ma aha tan labaad waxaana tusinaysaa ardayda ugu yaraa 6 jir oo quraanka dhameynaya caawa inuu san ahayn wax oo quraanku iyo barashadiisu inaan ahayn wax aan la buuraan la jabin karin ay sahlan tahay سبلا قولك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر إلا حصول قرآنك على حصوصه وآدم سهلا انتهي مركا وحيوتها يديري قلين أردادة يا والدينتا يا معلمين تبا يا مامو الكبا إن حوق لسي صاروا ولا عاكسين وحبدا بانو سوق واني لكن أين نقارين ميش أنسو عني أن مركز تسكود عني أنا مربع ميش وارد كبدا كسو صار سي ودنا marka intaas aan ku soo gabagabeynaya qalay dadkii waslaacna waa iga dambeeyaan inuu waa diirin waa Ahmed Allah khair وهيئات ممثلين ولكن رمضان وتاريخ هذا وكبحي مسجدك أحواشي قابك وصعدان ولي we thank you for the information he shared with us about this masjid and the quality of the ma'alamin, the teachers, and the quality of students and shuyukh we have in this masjid. Thank you again and again, Brother Ramadan. We move forward, inshallah ta'ala, the rest of the guests that we have in file that will say something about this beautiful gathering that we want to say thank you for this accomplishment of the students who graduated, finished the Quran at early age, not even required by Islamically, but did a good job and memorized the Quran, or at least he knows page to page the Quran. Move on, inshallah ta'ala, for the next of Ayariya Ridona, and that person is the Imam of this masjid, Sheikh Abdul Rahman. Ayariya, barakallahu feek, faddal inshallah ta'ala, Sheikh Abdul Rahman, Imam ka masjid ka, madrasada, masjid ka, Imam kun inshallah ta'ala, faddal shukran. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أيها الأحبة، أولا إلهي سبحانه وتعالى مهد ضمانته إسكاله الله سبحانه وتعالى نعمي لو نعمي نمعين أين سوكو بكرين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة تيهوري يقول ضمباب إلهي وكم هدسن سبحانه وتعالى. سيدو كله عاوة مجلس كان نور كله فرحة بدن سوون مت
ardayda kamid ardaydii dugsigeena masjidkeena qur-aanka dhameeyey dadooda adag yartahay sidii hore loo sheegay oo u mahad celinaya iyagana iyo waalidiintii iyo macallimiintii ku dadaaleen oo heerkaas soo gaarsiiyeen haddi waa farxad aada iyo aada u weyn oo lasoo koobi karin waaye in ilmahaagii qur-aanka uu dhameeyo waa quratu cayn il qabowsigeed weeye sidoo kale duyuurta iyo martida walaalaha kasoo qayb galay iyo intii kasoo shaqaysay barnaamijka waxaa leeyahay jazakum allahu khayran aad baa umahadsantihiin intaa ka dambeeya xubba kelmadeeda insha allahu tacala waxaan jeclahay inay noqoto awalan alqur'aan marka ugu horeysa qur-aanka kelimada macnaheeda waxay tahay in laga bilaabo ama lagu bilaabo ilmuhu marka uu yaryahay qur-aanka lagu bilaabo ama marka uu cilmiga uu baranayo qur-aanka uu ka bilaabo maxaa yeele ilahi baa ka bilaabay subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaarulxira guudkii la odhan jiray oo buurta maka ku yaalay hoostee buur maka ku taallo hoosteeda ku yaalay halkaasuu ilaahay ku ilaaliyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku jiri jiray xaaskiisii zawjadii u horeysay oo khadiijo ayaa deganayd magaalada maka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimid jibriil waxa uu ku yidhi iqra markaasuu nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ma ihi mid aqri ah mar labaad buu qabtay markaas buu ku yihi iqra sidii oo kale mar saddexaad markaas buu yihi maxaan aqriyaa markaas buu jibriil aqriyay iqra bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شنطة آيات وصورة علق وريسة بوها وحي وريي ونبي الرسول دجيه عليه الصلاة والسلام الله حكم بالله سبحانه وتعالى قرآن كله بالله وحي سبحانه وتعالى إذا نبدأ القرآن كما بدأ الله سبحانه وتعالى سيدي إلهي أقبل الله رسول كيسا وحي قرآنك وإنه إنه القرآن كبلا بينا سيدا درتين وعرورتا أما إلوها مركة يريهم حين قبلونا قرآن كينا قبلونا خاصة إنك بقنهان لقد أنكوها نايو ضدك كوها الله ما كسوة شيدا xilligii hore ee dadku niyadiisu ay wanaagsanayd xilligii hore ee qur-aanka la qiimeynayay cunuga looma diri jirin waxbarasho kale isagoo qur-aan aan dhamaynin isagoon qur-aanka aan dhamaynin dadkaasa xaqiiqada u dhawaa dadkaasa xaqiiqada fahansanaa awalan alqur'aan marka ugu horeysa qur-aanka in laga bilaabay way maxaa yeelay cilmiga dhammaantii wuxuu ku jiraa qur-aanka ayuu ku jiraa fiqiga haddaad u baahato islaamka waa qur-aanka laga soo istimbaaday oo laga keenay wixii aad u baahato oo xagga shareecada iyo diinta waxaad ka helaysaa qur-aanka ayaad ka helaysaa qur-aanku waa mubaarak wuu barakaysan yahay kitaabun anzalnaahu mubaarakun كتاب أنزلناه مبارك إليك كتاب بركيسن بانو كوسو دجنة محمد عليه الصلاة والسلام يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن مركة وبركة الماء مستقبل ونكسن هدي أول رفته الماء علمي هدي أول رفته وأنا أقول بالله قرآن كه سبر كذا قرآن كه وأهله قرآن كو waxaynu nidhi cilmigii oo dhan isaga ayuu ku dhan yahay kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiya fusilat aayaatuhu qur-aanka isaga axkaamta lagu tafsiiriyey qur-aanka isaga xaq iyo baatilka lagu kala saaray qur-aanku waa hanuun iyo hidaayo wey hanuunka iyo hidaayada iyo barakada qofkii ku bilaaba qofkaasaa hanuunka helaya alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin hudaa qur-aanku waa hanuun
وهدى ورحمة للمؤمنين حق كلام القرآن هو رحمة إله سبحانه وتعالى قلت مرقى دونا يا نحريست إله سبحانه وتعالى قلت دونا هداية هانو قلت دونا علم يا حقيقة حق إله سبحانه وتعالى حكب الله قرآنك حكب الله عرفتيس قرآنك حكب الله ولا لي الحين جوجنا زمن أما وقت وحين جوجنا موازين أفكار بني آدم إنتان بني آدم كلا قال المسلمين أي ما أنت إسبد الشيء هذا يسبد الشيء مرك الله في ريو حلقي هره السلف كي يعهودي مبارك الله هيك أو بركة سناي هذه أكون نقطة ترجمة أما مقدمة لو سميي أئمة مسلمين أما هالنقدان حفاظي حديثك أما هالنقدان مفسرين تي يقرالي أما هالنقدان فقهاء ضدك المسلمين علمي وحيكب الله بجرين القرآن كاي كب الله بجرين السجا أيام دمين جرين وحفظين جرين صادر تبدأ تراجم تمرك آخر العلماء أيام عرفتي قرآن لغو بالله قرآن وحكم بالله دألاس وحكم دمي دألاس وكا قاطي شيء خاص تفنك كلو كسد ما ينعمل أيضا إذن أولا القرآن ولا ليال موازينتا ما أنت مركا قدرتي وعروفتي أنا هذا لغو بالله أيوه وحبر شدي كالي أماتك الدنيا دهيت علمك يا شريعة إسلامك maadadii adduunka isaga ayaa laga bartaa maxaa yeelay maadada waxa faa'iido leh mid barakaysan ee xaasha ah isaga ku sheegay cilmiga iyo shariicada islaamka cilmigi aakhiro iyo meesha aakhiro aad tagi lahayd isaga ayaad ka baranaysaa idan awalan alqur'aan qur'aankana soo celino wanaagii uu lahaa qur'aankana soo celino cizigii loo hayay قرآن كنا سوعنا توقير كي ذاتك مسلمين قلب جوضه وكلها يتحوض وكلها بلو بهنية هي ولا ليال أرداسي وأرد مهمة حين جونا وقتي قفك كتاب الله سبحانه وتعالى حنباري أو كنت فنوني ذاتك أكتوض مسلم ميزان وين وسكرهين لكن ما دا أدوك كمدى أدوك كنت خصوصا تسالهان عافي ما دو برتي والدكتور تسالهان wuxuu bartay injineeriya waa maaragtay professor xagga dhankaasa kaasaad moodaa dadka maanta agtooda qiimo weyn inuu ka leeyahay hadalqaadkiisuna uu badan yahay ayaad moodaa laakiin ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala iyo cinda a'immati ddiin dadka muslimiintaha oo imaamyada diinta agtooda qofka uu cilmigiisu uu ka badan yahay ku camalfalkiisuna uu ka badan yahay أما هو كون أكسيه هاي كهاسة أيه وقوقع قوقي ميان الميزان كاس أيه ساران حردونا يا بركة أفهم كان أما فهم كان إلى سبحانه وصيدي السحلة هاي إلهي سبحانه وتعالى وترك لي إن أي مرة محيا لي وحين النهي ذاتك إلهي دينتي سحباري ذاتك إلهي دينتي سقاطي ذاتك دينتي إلهي سبحانه وتعالى راعي هذا إنه النهي أنت أيضا له الريال إلى اللي نقدون يا وحاولناها qof kasta oo waalid ah oo maanta ku nool magaaladeena indhihiisa ayaa macallim ah dadaalkii la bixiyay ee lagu dadaalay da'yarteena ha ahaado xagga dhinaca ciddii wax bari lahayd ha ahaato meelihii iyo amaakintii ay wax ku baran lahaayeen waa la diyaariyey alxamdulilah sidii ugu wanaagsaneyd baan u diyaarsantahay kaliya waxaa la doonaya inaan ka faa'iidaysano axmed limaan aan ka faa'iidaysano wallaahi qof waalida oo jooga magaaladan oo ka warhaya waxaa ka socda masjidka iyo nuurka ka baxaya oo aan ka faa'iidaysanin oo uga faa'iideynin ilmihiisii waxaa la odhan karaa waa u khasaaray qofkaas baa la odhan karaa maxaa yeelay khasaaraha waxa ugu weyn waxaa weeye khasaar xagga diinta hadduu kugu dhaco wey berri ilmahaagii haddii adiga uu kuula doodo ilaaha aad sheegaysa aawi itaabsii xagguu jira waa buux maanta ilmo muslimiin ah oo caqiidada ay ka buuxaan maanta jira yaa sababay oo keenay ciddii sababahay adduunkan inuu yimaado oo labadiisa waalid ah marka waxaan u baahannahay axibati liman inaan u laabanno alqur'aan
kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala isagaa lagu badbaadaa fitanka isagaa lagu badbaadaa jahliga isagaa looga baxaa waa nuurun calaa nuur ilahi waxaa weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu naga dhigo ahlulqur'aan ilahi waxaa weydiisanaynaa subxaanahu watacaala qalbigeena inuu qur-aan ku nuuriyo guryaheena inuu qur-aanka ilahi ku nuuriyo subxaanahu watacaala إن إله نجد سبحانه وتعالى أقيم به إله دين سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير. وهي أدب ماسية الشيخ عبد الرحمن وسينا قيب وين كتاتاتي مهمة إلى الحي وبرشدة قاسة بالإسلامية القرآن كي وهالبرو عرفت البرو وعن معناه يكوي نادان سيانا كوي دينين بريتو لين يكون صلاة اللي لها شيء سلبي وحاول حسوسيني والدين تبضنا عرمها كقد عضو حق عرورتا markay soo gaaraan teenage ay soo gaaraan oo kale hadii aan ugu dadaalin horaantoodii waxyar horaantoodii hadii aan ugu dadaalin diinta Mareykanka waxaan maleynayaa maamooyinka ka qaban waxay yiraahdaan what goes around comes around 10 times higher waxyaalaha marka hore aad qalado waxay yimaadaan ayagoo ka culis badan sidii hore asalka in la ilaaliyo waalidiin badan ee caawa halkan aan joogin carruurtoodii aan joogin maybe ay daawanayaan macnaha maxaa la yiraahdaa كم كيبل مالي لنا على واحد كبير مقيم ما أنت نعرضي أدوية يوم مواليد أدوية لها كان يوم فنيان أريك أدبا لو نكسيها شيخنا أريك أسمو برامجي قيمة أولية عرضي انتويري هاي مسؤولية انت بصارت هاي رب سبحانه وتعالى وتنقوفوا ذي ماها 18 ماها 21 ماها 30 ماها إلى الجامعة ذي كبحان سيدر القلبات كان كنا قان عرورتا إلا كبحان جامعة اللي دمتاقنا لها وبيران سيدي تنجري كمتاقنا لها هذه إلى يسوي كوفود ذي شن يتبصروا في كوين هذا مسؤول كمان يدوب لي ما نسق عسكر لكن هذا حلقة الدنيا يران تودا سيدا والدين تعاونوا مغلا أفرتا عرور كسر دلالي under 12 years كبر القرآن الكريم كان إلى لو كانوا يدين هاي وارت قلبي ولا يقولوا له ولا يجوا لكن أخذ شعب الرحمن وهي waxaan filayaa insha Allah taala inaan sii gudi galno reasonkii aan halkaa u imaanay ardaydii ayaan soo dhaweynaa iyo waalidkooda anagoo markaa barnaamijka dhegeysiga kala gabagabadii aan soo gaarayno inuu dhimay waliba speakers kale waxaan u yeerayaa waalidka iyo waliba ardayga quraanka caawa aan u fadhino oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Aadan Cabdi iyo abiis inay soo kala fadhiistaan markaa halka ay nooga sii amaqaadaan محمد آدن عبدي أصدق يا إنسيدون information كسابسن نولشي سي تارنولد كيسي قابكي وحبرتي إبوبي وكبرتي دادي سي هنكو قرآن كلامية معلمين تيسا سودوي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. First and foremost, all praise belongs to Allah. I thank my parents who spent a lot of time on me and took me to Duxi and I could learn the Quran. After that, I also thank my Ma'adan who taught me the Quran, what I could be better a Muslim and my deen. I was born in Saudi Arabia in Jeddah and I moved to Damascus, Syria to learn Arabic, and I learned Arabic to write, and I learned Arabic in school, and then I moved to America. I was born on January 29th, 2002.
I started the Quran in Al-Faruq when I was in Surah Al-Taghabun. My first teacher was Ma'alin Saeed Hussein Duali, and I went to Al-Faruq Youth Center. I started the Quran in 2011 and I finished in March 15, 2015. Now that I finished, I could still go and study to be Hafiz. May Allah forgive all of our sins, and may Allah bless us with His rahmah on the day we will be standing in front of Him. And I thank the Imam and the people in the masjid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب تكبير الله أكبر waayahay ardaygaasina wuxuu ahaa ardaydii qofkii ugu horreeyey ee aanu caawa kusoo dhaweynay microfonka ka qalin jibinaya ama maaragtay xafladiisa aan u fadhino ilaahay khayr badan ka siiyo waalidiintii iyo weliba naftiisa uu kusoo dadaalay macallimiintii kusoo dadaalay ardaygaasi wuxuu ahaa maxamed aadan cabdi waxaan kaloo kusoo dhaweynaynaa mar kale ardayga xiga haddii allah awoodda la ogolaado waayo intaan ku celinin macallimiin ardayda intaan ku celin ardayda iyo dadkii aan ugu talagalnay caawa xafladooda aan ugu fadhino waxay ugu qiimo bilaabay dhalinyarada waxyar malaamus kara yar iyo weyn waxyar malaamus kara waayahay waxyar malaamus kara attention over here inshallah all attention all eyes on the mic inshallah ta'ala jazakallah khair all eyes on the mic please waayahay Sharif Aydrus ayaanu yeerayaa Sharif Aydrus ayaanu yeerayaa kelmadiisa barnaamijkan aadka u qiimaha badan leh inuu kelmadiisa ka yiraahdo billahi kariim Sharif Aydrus
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله barnaamijkii gaabnaa ee ka hadlayay carruurta iyo weliba waxbarashada iyo qur-aanka rabbulcaalamiin. waxa uu tilmaamay waalidka qayb aan la hilmaamin ama aan lagu soo darin hadda in la hilmaamo aad moodid ayuu taabtay. wuxuu yidhi waalidka khaasatan hooyooyinka ayaa gadaal ka taagan back-upka oo carruurta qur-aankay ku barteen ama ay ku xifdiyeen ama heerka soo gaarsiiyey. asagoo sidaa usii faahfaahin haddana waxa uu yidhi waalidiinta khaasatan hooyooyinka waxay mudan yihiin xoogaa dahabi ayay mudan yihiin, xoogaa dahaba ayay mudan yihiin, xoogaa qiimo badan oo dahab ka badan bay mudan yihiin. They are well deserved maaragtay, and by the time they raise the kids and after that they try to push the kids to memorize or to finish the Quran and even at once. Maxamedka labaad aan u yeernay oo caawa xafladiisa aan u fadhino oo waalidiintiisa ay fadhiyaan aan ugu yeerno microfonka waxaa weeyaan Maxamed Xasan. waa 9 jir waxaana uu qur-aanka ku bartay here in Nashville, Tennessee, waqooyiga America, gobolka Tennessee. caasimadiisa ay tahay Nashville. waalidiintii soo barbaariyey ilaahay khayr badan ka siiyo waxaa inoo akhrin doonaa aayado qur-aanka kariimka. macalinkiisa waxa uu ahaa ama uu yahay ama uu ahaan doonaa macalin Saciid Cabdulle. madrasada ama masaajidka wax ka bartana waa masjidka Al-Faaruq ee ku yaala gobolka Tennessee. caasimadiisa ay tahay Nashville. waxaan soo dhaweynaynaa waalidiinta إن شاء الله معلنك محمد حسن أو 9 جيل واسمه مركز قرآن كل مي مسجد كان الفاروق. وحنا لنا هاي والدينته يهوينكي مركز أرين كان كدل بي إلهي خير بدنا كسيو وحنا نأخذ دورة آية القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله
لله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم أهلكنا قبلهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تكبير. 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 وياهي إن شاء الله تعالى وحنير يا معلمين تمعلم كمدة وآديات لوغرس بتقرأ إن شاء الله تعالى معلمين تدمانتون قيب كمدة واد مغشين قيب كمدة ويزوص على معلم محمد بنوير يا معلم محمد تابي بنوير إن شاء الله تعالى. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u malaynayaa in hadalkaintiisa badan u dhamaaday insha allahu tacaala kelimad yar oo kaaban oo muujis ay insha allah kusoo koobayaa. ugu horeyn waxaa farxad ii ah in aan halkaa kasoo jeeday kelimad xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ardayda halkaa laga soo xusay magacyadooda aan u fadhino. runtii wax aad iyo aad loogu faano runtii ilaahay subxaana wa tacaalana hanoo ziyaadiyo. doorka xigana insha allah waxaan rajeynaya arday intaa ka badan inay kasoo qayb galaan. mahad celin allah subxaana wa tacaala noo celiya kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka kasoo qayb galay xafladatan. ugu dambeyn waxaan sii galayaa kelimadayda insha allah waxaan kusoo koobi doonaa 2 kelimadood, kelimad ku socoto waalidiinta iyo kelimad ku socoto ardayda gaar ahaan kuwa xafladooda u fadhiya. waxaa hubaal ah masaajidkan inta waqtiga badan u soo furnaa in udub dhexaad ay u yihiin waalidiinta. haddaysan ayaga juhdigooda iyo dadaalkooda aysan ahaan lahayn macallin uusan meeshaa joogi lahayn arday wax barto ama musnir ama maaragtay xeerka laga soo gaaro inaysan dhici lahayn. waalidiinta ayaa maaragtay udub dhexaad u ah. marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay waalidiinta dadaalka aada wadaan sii laba jibaara insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka allah idinkugu kabo. midda labaad ardayda xafladooda aan u fadhino waxaan leeyahay bitahni'a lakum qur-aanka aad dhamayseen waan idinkugu tahniyeynayaa. labada gabdhood iyo labada wiil maxamed xasan iyo maxamed aadan iyo sumaya cabdullaahi iyo sumaya cabdiraxiim runtii waa dad aada iyo aad da-dooda u yar tahay qur-aankana ku dhameeyey meesha tan aan joogno. marka wax aad iyo aad loogu farxo weeye. waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala tallaabadii labaad ee ah inay qur-aanka xifdiyaan ayaan insha allahu tacaala ka rajeynaya ilaahi subxaana wa tacaala ha u fududay dhammaan ardaydoo dhanna insha allah waxaan ku guubaabinayaa in dadaalkaas ay gaaraan insha allah. man jadda wajad waman zaraca xasad waman saara wasal. ninkii socdo uu gaaraya, ninkii dadaalkiisana uu galaya insha allahu tacaala. waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda inay dadaalaan. intaas ayaan ku guubaabinaya insha allah hadalkayga maadaama waqtiga maaragtay iska gaaban yahay insha allahu tacaala. waqtiga intaasaan ku assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع محمد جزاك الله خير. مع محمد ثابت إلى خير من هذا في البداية والدك يا عروض بعض الشيء السي أنت سوق قبل وقتي وقت سيراني وقت يربع إنه هري we almost finished. okay we almost finished.
back home when we were in Somalia waxaan dhihi jirnay caloosha ay dhuuriyaasi marka hawsha iyo meeshaan ay maraysa camal ashoo qasanta maarta we are almost there inshallah ta'ala and waxaan u yeerayaa Ali Salah maamulihii hore mid maartay qiimo weyn oo Soomaaliya ugu fadhiya wanaag badan oo haya ilaa ay hadda meel walba ka muuqda inshallah ta'ala Ali Salah iyo kelmadiisa kooban ayaan asagana ugu yeerayaa barakallahu fiik waxaan yiraahdeen shaqada oo hayo oo ku maadsan yahay جزاه الله خيرا. انا مامور من يقول خادم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. واصلي واسلم المبعوث رحمه للعالمين. My dear brothers and sisters in Islam. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Most of things I was trying to talk about it. Some of brothers want to talk about it. Inshallah ta'ala, I would like to first of all say, inshallah, that all of you, brothers, sisters, students, wallahi inni uhibbukum fillah. Wallahi, all of you, I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And we hope and ask Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, to make us to meet each other, inshallah, Jannat al-Firdaus, and we'll talk about this time, inshallah. I would like also to give a message, inshallah, a very quick message for the community, all Muslim community especially, that I'm a Muslim, Sunni, I'm not belong to any group. My Sheikh is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My Jama'ah, my group is all Muslims, black, white, wherever they are from. I'm one of this community. I'm still here in Nashville, and I will do, as I said before, whatever, anything I can for this community and all Muslim community in Nashville, Tennessee. The first things I really learned in my life as religion side, I will still remember that hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam said. That hadith narrated on Aisha radiallahu anha, يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. The first lesson I remember was back home in Yemen. I think it was 1992 or 1989, something like that. I will still remember, whenever I remember this hadith, the Sheikh was teaching me in Yemen. Allah subhanahu wa ta'ala loves, think about this, my brothers, sisters, especially the kids, the youth, please. Sheikh Ahmed, be attention, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala loves, Allah will love you. Who will love Allah? Allah loves those who do the job, do the great job. If you are a teacher, do great job. If you are khadim for this ummah, your servant, you serve in this ummah, do great job. You are a teacher, do great job. You are a business, do great job. Allah subhanahu wa ta'ala loves you. When Allah subhanahu wa ta'ala loves you, all the malaika, they will love you. And Allah subhanahu wa ta'ala also make those mu'mineen, the good Muslim people in the earth to love you. I remember this Friday, one of my best, really I respect him as my older brother, come to me where I'm working right now, and he was talking to me, and he's really make me to cry. It's nothing else, he just told me, Wallahi Ali, since I've been in this center, I never seen someone, most of people love him like you. I told him I don't do nothing. I just try to be friend and with the young, with the oldest, try to do, inshallah, all my best. This is the point. I try. To be friend with 6 years old, I'll try. To be friend with 8 years old, smile all the time. Smile in the face of your brother. That's a sadaqah. Without not giving one penny from your pocket. If you smile in your brother, anyone come to you, or anyone you saw him, say Salaam Alaikum. Most of the time when we walk to Walmart or somewhere we go, some people I just see their face looking like Muslim. My brother, son is here, Abdullah asked me. Every time I say them, Salaam Alaikum. And son told me, they are Muslim. I said, his face is looking like Muslim. I will say Salaam Alaikum. If he responded, he will get ajr. If he don't, that's up to him. So Salaam Alaikum. Smile to your brothers. I will not take a long time as usual, inshallah ta'ala. I don't like to talk, inshallah. And as I said before, and I promise again, I'm here in Nashville, work with you guys, and I would like really to thank to the board members, the Farouk, the Imam, the teachers, the parents who contact me personally and invite me today. And really, they invite me to my home. I don't know how it comes like that, but this still is my home. And I will really, inshallah, be ready for anything I can do for the community in Allah Kareem.
And I will give also one thing for all the youth. Please, yes, we need doctors who memorize the Quran. We need engineering Muslims who memorize the Quran, who knows the Quran. We need truck drivers who memorize the Quran. We need nursing who memorize the Quran. Memorizing the Quran, we need the Muslim all community to be learned, inshallah ta'ala, and tomorrow you guys are going to lead, inshallah. Inshallah, the last things we want to say, inshallah, for the teachers and all the parents, and also the board members, board trustees, and also remind myself, Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Everyone is responsible, and he will accountable for what you are responsible. And the point, Wallah al-Adim, my brothers and sisters in Islam, just try to do all your best and make whatever you make it for ikhlas, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Every time, just when you pray, ask Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, اجعل أعمالي كله خالصا لوجه الكريم. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make your good deeds for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If I did anything wrong, my brothers and sisters, please forgive me, and I'm still here around. Anytime you need help, just call me, and inshallah ta'ala we will help, inshallah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم خير. كلمتي كوبنيت دي برضو أكيد دونتان علي صالح كبوغل ميل إن شاء الله تعالى. هذه جير هميني مالين حلو البيت هاي هذا اللي دي بوصل نقضونا دي الله ودر وقلال قيمة إنه ما هسنا برنامج كو عادي هذا نسوق قبل دونا مدة صوتي شري 3 دقيقة وحنو يريع هذه الله ودر وقلال قبل الدعير استنتج يكون لما يسوق القرآن الكريم هل كان يمشي تنسي وحنا مقعد لنا سمية عبد الرحيم وحنو يريع بهيد عبد الرحيم وهل كان يمشي عبد الرحيم تفضل. وهي سمية يا بهد يا إن الفريا وحد سمية دادي تهاي وخبرشدي ذي والد خيفت إكتانتين طبعا بهد يا نقول من دونا وحين سوقاتي نستجرت هاي القرآن كان تكون بلاولي أيضا early age كي لفترة هالك كبرتين ثم كان يكون من القرآن الكريم كان هاتنا معناها أفضل لقل جبنتي ولما محلها الدرجة وقادي كرو قادتي وحن يا أنت هالك فضل عاو هالك وحلوسو فدي ريزن باكرة نادي لا يكون يا والد كذا يقول يا أبي مركز وقرب استاجي إلى آخر مدى قصي يوم عن كذا وحويان مع سعيد عبد الله مدرسة كبرتان ومسجد كعب الفاروق مدرسة الفاروق تفضل أبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد mahad dhammaanteed waxay u sugnaatay ilaahay waaxidka abuuray muslimiin naga yeelay nagu kulmiyey beydkiisa annagoo ku maamusayno kalaamkiisa. waxaan malaynaa khudbada iyo wixii aan sheegi lahaa waa horaa loo sheegay dad iga cilmi badan ay iga horeeyey hadalka marka inaan laga hambayn aan malaynaa laakiin waan ku daraya wax yar. marka labaad waxaan hadal celinayaa maamulka alfaaruq iyo maamulka kasoo bilow iyo cid kasta oo wax geysatay ha ahaato shaqaalo ha ahaato fikrad ha ahaato masaajidka oo nadiifiyo intaba waa u mahadcelinayaa mahad guud
mahadda gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii suuro geliyey in ciyaalka qur-aanka ay dhameeyaan oo maanta aan halkan ku kulano annagoo u dabaaldegayno ciyaalkeena qur-aanka dhameeyeen anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta xafladooda caawa halkan loo fadhiyo dhammaantiin waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran sida sharafta badan aad ugu soo qayb gasheen xafladdan waxaan idin soo celinaynaa mahadda aan la soo koobi karin waana ku mahadsantihiin wax yar haddaan dib u noqdo taariikh nololeedka gabadheeda Sumaye Cabdiraxiim waxay ku dhalatay Nairobi waxay timid halkan ayadoo 2 sano jirto dugsiga hore kama keenin duruufo jiri awgood waxay dugsiga bilowday oo caadi u bilowday inay qur-aanka dhigato 2013 bishii September waxayna dhamaysay 2015 sanadka hadda ku jirno bishii August halkaas waxay noqonaysaa 2 sano oo bariyo dhiman taas waxay ku tusaysaa marka cunuga inuu 2 sano qur-aanku dhamayn karo haddii lagu dadaalo inta jid kusoo jirtana waxaan ilaahay ugu baryaa in ilaahay u fududeeyo intii hore ayada ay ka mid tahay oo hadda qur-aanka dhamaynay waxaan ilaahay ugu baryaa in ilaahay ku xifdiyo qur-aanka oona noqdo qur-aanka kii uu shafeeca qaado maalinta qiyaama insha Allah tacaala wax yar haddii aan fiiriyo maadaama la siiyey doorka waalidiinta caawa waxaan halkan kusoo koobayaa 5 qodob oo aan soo koobayo maadaama waqtiga uu yar yahay 5taas qodob qodobka ugu horeeyo cunuga markuu dhasho wax yar oo hadaaq gaaro oo hadal bilaabo in diinta la jeclaysiiyo in qur-aanka loogu sheekeeyo in mataqaanaa attachment oo la yeesho diinta barashadeeda iyo sidii sharaf u leedahay ayaan horta marka hore soo jeedin lahaa maadaama la doonayo in cunuga uu mustaqbalka wax barto sheekada sida badan ilmaha aad ugu faa'iideystaan oo wax kaliya luqadda ku bartaan oo wax kaliya dhaqan ku bartaan oo wax kaliya ku ogaadaan waalidkooda jecel yahay ugu jecel yahay aad ay muhiim u tahay waa qodobkayga koowaad in ilmaha ay la joogaan mar walba ama lagu dadaalo inay la joogaan dad wanaagsan oo aan baraynin luqado qaldan ama aan munaasib u ahayn haddaan u gudbo qodobka labaad oo kale waxaan kusoo koobayaa in ciyaalka ama carruurta loo helo meel institution halkaan oo kale ku bartaan meeshaasna ay noqoto meel la karaameeyo oo la ilaaliyo hadday tahay nadaafadeeda hadday tahay macalinka waxbari lahaa hadday tahay mas'uuliyadda ay isticmaali lahaayeen hadday tahay agabkii ay wax ku baran lahaayeen in ayadan la wanaajiyo si cunuga laftiisa markuu weynaado oo ku barbaaro meel ama environment u sahlayo ama qayb ka qaadanayo waxbarashadiisa haddii laakiin meeshii aan la qiimeynin oo aan la sharfin cunuga laftiisa xigmad weyn uma arkaayo waxaan qodob u dhiga waxaa waaye waxyaalo badan oo soo arkay maadaama aan madrasada in badan la soo shaqeeyey qodobka saddexaad waa macallin la xulay in la helo waalidka inuu ku dadaalo waayo cunugiisa inuu u raadiyo oo u helo macallinkaasoo karti u leh inuu cunug wax baro kartida waa badan tahay laakiin waa soo koobayaa macallinka aqoonta hadduu leeyahay facility-gana u haysto cunug waa bari karaa waalidkana uu markaas ku ilaaliyo macallinka cunugan laga dhaadhiciyo waalidka annaga markaan yarayn cayaalkeena waxaa noola sheegi jiray aynay ahaydba macallinkaaga waalidkaaga labaad waay marka mar walba wax qaldan kuma faray adaa qaldan marka sidaa in loo fikiro insha allahu tacaala ayaan ku boorinaya ayagan waalidiinta maadaama waalid ka mid ahay karaamadaas la karaameynaayo meesha waa diinta ilaahay lagu baranaayo iyo macallimiinta iyo dadka diinta ilaahay u khidmeynaayo waxay dhisaysaa cunuga inuu jeclaado diinta asagana hadhow oo tartan u galo inuu diintay oo wax ka barto dadka uga sarreeyo ama qaybta hore uu ka galo insha allahu tacaala
intaas kadib waalidka cunuga inuu wax wanaagsan u dardaarmo una duceeyo haddaan wax yar ka in tusaaleeyo kale nabi yacquub calayhi salaam markii ay geerida ku soo xaadiraysay dhimashadiisa wax yar ka hor ayuu ilmihiisa u kulmiyey marka wiilashiisa kulmiyey wuxuu yidhi aabow haddaan anig maanta geeriyoodo gadaashay maxay caabudi doontaan maxaad noqon doontaan wiilashiisa waa u jawaabeen maadaama si fiican loo train gareeyey jawaab fiican ay ku jawaabeen wiilashiisii waxay dhaheen waxaan caabudi doonaa ilaahayga aabbayaasha oo ibraahim ismaaciil isxaaq ilaah waaxid wa naxnu lahu muslimuun waxaan ilaahaygaasoo hal ah na wada abuuray annagana waxaan noqon doonaa kuwa hoggaansamay marka nabiga dabcan jawaabtii si sax boqolkiiba boqol ay u heleen taasna waxay ahayd juhdiga soo bixiyey iyo mirihiisna waa marka caawa mirihii ayaan haynaa jazaakum allahu khayran waqtiga xoogaa ugu yar iyo mataqaanaa anigoo hadalkii xoogaa aan laga hambaynin waa idin mahadcelinaya mar labaad jazaakum allahu khayran macallimiinta wax kale ma dhehayno waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsa ha nagu kulmiyo ajri xasanaad alla idinka siiyo waxaad ku dadaasheen fasilitiga iyo dadkii agabka u sahlanaya ilaahay jannadii firdowsa ha siiyo jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تكبير waayahay aayadaha qur-aanka kariimka ahay kelimadii ka horreysay waxaa inoo soo jeedinayay sumaya cabdiraxiin hilowle ilaahay khayr badanaa ka siiyo sumaya taariikhdeeda halkaad ba ku maqasheen gabadha ha loo soo duceeyey baaraka allahu fiik ayada iyo hooyadeed iyo aabeed guud ahaan
barnaamijkan quruxda badan ay noo soo diyaariyeen ilaahay ku xifdiyo sumaya ilaahay meel ka weyn ha ku gaarsiiyo qur-aanka kariimka ah ilaahay nolosheeda ha ugu saqiro aamiin ba kuna barbaaray kuna bilaabay qur-aanka kariimka goor aan waqtiga carruurta aan qabsan karin xataa qalinka insha allahu tacaala waalidiintii markaa heerkaa gaarsiiyey waxaan jeclahay inay ka mid yihiin aabaheed iyo hooyadeed insha allahu tacaala hooyinka dib baan ka magacaabi doonaa afarta hooyo ee ka dambeysay inay carruurta caawa qur-aanka halka kusoo dhameeyaan aabayaashood aragtaan insha allahu tacaala sumaya iyo aabaheed ayaan kusoo dhaweynayaa sumaya waa 6 jir inka yar 2 sano waa tan ku gabagabaysa qur-aanka kariimka ilaahay ku xifdiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الوقت وهذا الماضي إن شاء الله أنا أقول بينا ما نقرأينا ما هذه أسكر سبحانه وتعالى دمانتد وحاكم معرفة ما سؤال لنا علماء عشان كتبوا أرسل معلم والبا يا معرفة معلمين تا أرضا هايسو أو معرفة كل داشو والدين تهوري قدروا كانوا معلم والبا أو معمولين كي معرفة أوسي دل بديهين ويجران والدين رجعوا الدولار لكن معمولين كأد معرفة كانت كوله دماغ هم له هاي الله سبحانه وتعالى هذه بركة ورين هذين سالو وقت المدينة إن شاء الله سمي والحسنة أنت بدنا والد سيقان على نشفيل 2009 كده لتي معلمين كي أوه الري معلم الأولى أحمد محمد عفرته بالعودي يقولوا أولي جبت عيد واستحسن يبر جبته سنة كي لوضع كون استحي طبعا كي أيضا شخص أنا جارين بلاو كان معنا السعيد دعالة بشي سبتمبر لبعتين لوضع دي 2015 أن كنت جرنا هذا أغسطس 22 لما يستوي وكوي تمام بلاد هي هل سنة يكوي تمام بلاد أما لما سنة أو باللمان كوي لبن موجود حفظين تأوصي عرتي إله أوفو ذي أنت لمن waxaan kusoo dadaalay waxa laga yaabaa in dadka dhahaan abeeda macallin ah laakiin saas ma arin waxaan ka qabtay waa iska yartaa percentage-ka 5% camal noqon karaa waxaan aad ugu soo dadaalay macallimiinteeda hore u bilowday farta macallin luul oon leeyahay ilaah subxaana watacaala ajir badan ha ka siiyo iyo hooyadeed geski maxamed cali ayaa ahaa dadkii maaragtay dhexda u xirtay iyo gabadhaan kusoo dadaalay ayagana waxaan leeyahay ilaah subxaana watacaala intaad barteen miisaanka xasanaadka idin saaro waxaan laga iloobi karno meesha ku jiro in macalinkeedii qur-aanka u dhameeyey suuratu naas oga bilaabay markii loo keenay 2013kii iyadoo suuratu alxaaq marayso dib u celiyey suuratu naas oga soo bilaabay 11 bilood iyo hal sanana ilaahay u suurtageliyin oo ugu dhameeyo inaasna mahad weyn leeyahay artaanada aan qadarinayno ilaahna aan maaragtay subxana watacaala ugu baryanayno umuurihiisa u sahlo khayr ah waxa uu niidi ku hayo wanaagna ilaahay siiyo intii dadaal oo soo qabtana ilaahay uu ugu bedelo miisaanka xasanaadkiisa u sahlo qiyaamaha isaga iyo intii macallimiin oo soo garab gashay ardada dhammaanba waxaan leeyahay macallin saciid baarak allahu fiika axsanta waxsan allahu ilayk intaas aad qabatay maaragtay wax hadda annaga aan ka tari karna ma jirto oon ahayn duco iyo in maaragtay xaraf kasta oo sumayo akhriso aad ajir ku leedahay insha allahu tacaala waan annagana si isku dayin inaan ayadana kusii kiib garayno ama kusii hayno inay saas qur-aanka usii akhriso ama ay kusii dadaasho hal talan baan leeyahay waalidiinta dadaal uma yaro dadka hadda mareykanka joogo gaar ahaan nashville waalidiinta si khaas ah aad bay u dadaalaan maasha allah shantan beri wax hadda keena mareykanka nashville baa ka jirto waxaad waalid un daba taagan oo hadda lacag raadinin oo inta badan in wax daba socdo waa nashville waa intaa ku ammaanan tihiin ilahina idin garab galo lacag way iska dhamaanaysaa qarashaad bay ku baxaysaa meel ka baxday ma taqaanin laakiin ilmahaada qur-aan aad bartay baa ka muhiimsan wax kuu bartay isku day fadlan inaad la fadhiisato ilmaha time yar aad siiso maaragtay aad isku daydo wax ka saxdo haddaad qur-aan aqoonina qof yaqaan aad la kaalmaysato macallimiinta ay ku ka yihiin intaas ayaan oga baxayaa baarakallahu fiikum jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum kulligiin dhammaantiin waxaan kusoo dhaweynayaa sumaya una akhrinaysa one page insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تكبير الله تكبير الله waxaan rabaa inaan saxo waxyar walaalkeen cabdiraxmaan magacyadii ardadii hadda martay oo qaar uu laga yaabo si qaldan loogu soo qoray ama ugu haystay waxaa ugu horreeyay ardaygii maxamed aadan cabdi oo hooyadiis la yihahdo maam faadimo waxaa ku xigay maxamed xasan mukhtaar oo hooyadiis la yihahdo fawziyo waxaa ku xigtay sumaya ibraahim cadow waxaa la yihahdaa hooyadana la yihahdaa fardowso diyaaro ducaale waxaa kaloo ku xigtay sumaya u dambeysay oo hooyada la yihahdo miski maxamed marka macallimiintooda maxamed xasan mukhtaar waxaa fartu bilaabay macallin saciid ducaale oo soo gaarsiiyey wanaasicaad kadibna macallin maxamed cali maxamed taabida lagu wareejiyey oo ilaa hayay suuratu shucaraa kadibna sanadkii hore aniga laga keenay intaasoo macallin uu soo maray maxamed aadanna sidii loogu keenay suuriya macallin saciid baa u horreeyey labadan gabdhoodba baarak allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum جزاك الله خير أبو ماسية مع عبد الله وكذا بتيجي مقاعدين سيدة خلتك أو ضحايا ما سيدة خلتك أو قرني جزاك الله خير بارك الله فيك مساك سنة الله كسر إلا السحاب وقناري قلتي قبل يا جبنا وحنا صوصفينا أرضيدا يشهدنا وحنا يريا I'm calling the names إن شاء الله تعالى محمد آدم عبدي محمد آدم عبدي الله العظيم العظيم ان يحفظك بالقران امين امين الله يحفظك بالقران
Jazakallah khair. Muhammad Adan Abdi, that was Muhammad Adan Abdi and was given a certificate. Muhammad Hassan Mukhtar. Muhammad Hassan Mukhtar. Come forward. Muhammad Hassan Mukhtar. This is Muhammad Hassan Mukhtar, inshallah. الله العظيم رب العالمين يحفظه آمين. بالقرآن. قول آمين. 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 سمية ما تاكل حلاوة كثيرة. عبد الرحيم هلولي. سمية عبد الرحيم هلولي. اللهم احفظها بالقرآن. قول آمين. 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 جزاك الله خير. هنا عبد الله علي وسمية يري. هنا عبد الله علي. سمية عبد الله علي. سمية عبد الله علي. This is Sumaya Abdullah Ali. آمين. اللهم احفظها بالقرآن. اللهم ثبتها بالقرآن. اللهم زكها بالقرآن. اللهم فقهها وعلمها القرآن. اللهم استرها يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله بخير.